Assalaamu calaykum. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Maanta waxaan doonayaa inaan kuu soo bandhigo 5 waxyaalood oo sababay inaad ku guuleysan weydo DVC Lottery-ga Mareykanka ee sanad walba ay xareeyaan dad kor u gaaraya 50,000 oo qof. Mudan haddaad ku cusubtahay channel-ka, subscribe dhis si ay kuu soo gaaraan muuqaalada. Siina share gara muuqaalkan adigoo la wadaagaya asxaabtaada. Okay, haddii aan u guda galo barnaamijka DVC Lottery muxuu yahay? Ma doonayaan inaan ku dheeraado. DVC Lottery waa visa ay bixiso dowladda Mareykanka sanad walba ayna xareysan dad kor u gaaraya 50,000 oo qof. Waxaa jira dalal badan oo laga mamnuucay viisadan oo lagana mamnuucay sababo kala duwan. Waxaa ka mid ah dalalka laga mamnuucay Hindiya, China, Bangladesh, South Korea, Nigeria oo 2015 laga mamnuucay. Soomaaliya lagama mamnuucin viisada loo yaqaan DVC Lottery because of 50,000 oo qof oo Soomaali ah kuma aysan guuleysan DVC Lottery kumana aysan tagin Mareykanka. Soomaaliya waxay eligible u tahay in ay xareysto qofka Soomaaliga inuu xareysto DVC Lottery eligible ayuu yahay. Marka haddaanu nahay Soomaali waxaa jira dhowr caqabadood oo nagu noqday laf dhuun gashay oo laga baxsan kari waayay. Maanta waxaan doonayaa inaad muuqaalkan aad kaga bogatid 5 waxyaalood oo caqabad ku noqday Soomaalida. Haddii ay jiro caqabadaha haddii jiro qodob ka mid ah oo adiga dhibaato kugu noqday, commentiga hoos noogu reeb adigoo mahadsan. Okay, haddaan ku bilaabo number 1 caqabada koowaad ee Soomaalida haysata waxa loo yaqaan double application submission. waa xareynta 2 jeer application-kaaga 2 jeer oo aad ku celisid isku mar. Okay, for example, form baad buuxisay, information-kaaga oo dhan form-ka ku buuxisay. For example, waxba ka khaldamay ama waxa laga yaabaa magacaaga khaladay ama address-kaaga khaladay ama lambarkaaga khaladay ama email-kaaga khaladay. Waxaad samaysay waa submit gareysay. Markaad submit gareysay already waa dirtay, mar labaad baad ku celisay, haddana waa dirtay. Marka ha sugin, ha ku xisaabtamin. Haddaad sidaas samaysay, ha ku xisaabtamin, application-kaaga reject baa lagu sameynaya. Already waa la saaraya. Okay, qodobka labaad waxa loo yaqaan travel ban. Haddaanu nahay hadda Soomaali waxaana saaran waxa loo yaqaan travel ban oo uu saaray Donald Trump, waa madaxweynaha dowladda Mareykanka. dalal dhowr ah oo saaray ayuu wadankeenu ka mid yahay. Haddaad ku guuleysatid DVC Lottery-ga Mareykanka, eligible uma tihid inaad Mareykanka tagtid. Waxa kugu celinayaan in aad wadankaagu uu yahay travel ban. Okay, taas ayaa caqabad noqotay. Caqabada saddexaad oo Soomaalida qabsata waxa ka mid ah waxa loo yaqaan photo mistakes. Haddaad ogsoon tahay DVC Lottery-ga sawirkiisu wuxuu leeyahay rule u gaar ah, sida inuu 600 oo lagu dhuftay 600 uu pixelkiisu yahay, kaybigiisuna uusan ka badnayn 250. Sawirka background-kiisu inuu yahay white color, in aadan xirnayn waxa loo yaqaan glasses ama ookiyaalo, in uusan macnaha gadaashaada isu ka muuqan waxa loo yaqaan shadow ama waxa loo yaqaan hoos inuusan ka muuqanin gadaashaada. Sawirku waa inuu noqdaa gadaashaada white color, ookiyaalo inaadan qabin. waxa kale oo caqabad ku noqdo Soomaalida waxa ka mid ah waxa loo yaqaan Photoshop. Haddii sawirka aad Photoshop ku samaysid, already reject baa lagu sameeyaa. Maxaa sababay? Waxaa la rabaa daily life-kaaga dharka aad xiratid inaad sawirka soo gashid. Haddii laakiin intaad Photoshop samaysid aad suud ka soo dejisid online-ka ama software-da ku samaysid aad isku xirtid, aad ku xareysatid, already computerize ayaa qabanaya, ka bacdina reject ayaa lagu sameeyaa. Okay, caqabada afraad waxa ka mid ah waxa loo yaqaan medical issues. haddii aad DVC Lottery-ga xareysatid oo ku guuleysatid oo medical issues hadii lagu helo, reject baa lagu sameeyaa, visa-na waa laga kansalay. Waa caqabada afraad. Caqabada shanaad ee qabsan karto waxa ka mid ah waxa loo yaqaan criminal background. Haddii aad DVC Lottery ku guuleysatid, for example, waad xareysatay, waad ku guuleysatay. Markii aad visa xareysanaysid, interview baa lagu yeelanayaa, ka bacdi waxa lagu sameeyaa search badan. Haddii aad criminal background-kaaga laga soo helo waxyaalo inaad magaranaysaa dhibaatooyin geysatay, something like this, visa-na waa laga kansalaya. Okay, waxyaalo kale oo badan ayaa jira, laakiin intaas ayaan maanta soo koobay. Haddaad garanaysid, comment noogu reeb. like saar videoga haddii aad ka heshay, subscribe ne
saar YouTube channelka waayo waxaan soo wadnaa muuqaalo kale oo ku saabsan DVC lottery iyo barnaamijyo kale oo ku saabsan scholarship si loo xareysto.